الله وبركاته داود الهانتين مير والباجوكتان يسوي البرنامج داود إنسان كسر دوالة دوبيا ميديا قرب سياسات كود هو وين أرمها الصومالي القصية يعني يسوق بدونا وحنا كم من إسلام مركزنا قد يجود هي الصومالية كينيا خلاف كودا حقيقة رادين تيكسر الإيجاد أو 40 كسر صاري الدولة الصومالية وهذا الدبلوماسية وحنف له كسر صارتي جبوتنا إيران وسوجي إسلام مركزنا شكتين كفلقاتي walaaltinimada soo jireenka ee u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Djibouti qodobadaasi ayaa ku daawo doontaan haddii eebaha awood leh noo ogolaado waxaa warbixin soo saaray guddiga khilaafka xaqiiqo raadinta ee ka socda goboleedka IGAD aydoona guddigaasi warbixinta ay soo saareen u gudbiyeen guddigaasi la wadaageen gudoomiyahaasi goboleedka IGAD ee shir gudoominaya ra'iisul wasaaraha dalkaasi Suudaan عبد الله حامد وحنا شاغين إن أرنت يسوق الدين وديبين وسفير كجبوتي وفدي دلك في السودان ربعين تايا وحكوا شاغين إذا أنت يسوق جيش الدولة الصومالية إن يسوي حبك جرين إسلام مركزنا الصومالية يكين يقلاب قوضة متهرة كوسو سلايين أيضا نقطة بدأ يسوي صارنا كمدها إن أي صومالية سوء إذا سيد دولة كينيا كوس شاكتنا إن يكوسو حد قدبتي هولا الصومالية تاسنا شاكتي إن يسميشو كجري مادام الصومالية ممنوع ذي إن دورستا قبل كجذو إسلام مركز ديجانا جبل الماموشة ديارها تجا مقدشة معنا يان كنك عيان sidoo kalena ay sheegtay dowladda Soomaaliya markii hore in arintaasi ay tahay diyaaradaha dhamaan ka imaanaya Kenya balse aysan ku darin kuwa ciidamada AMISOM ee ku jira howlgalka midowga Afrika ee AMISOM waxayna sidoo kalena meesha ay ka saareen in ay ciidamada jabhadaha ay soo abaabulaan waxayna sheegeen in xadka guddiga markay tageen ee la kulmeen ciidamada Soomaaliyeed deegaanka Soomaalida ee ku sugan hoostaga maamulka Jubbaland isla markaasina aysan jirin wax tababaro iyo xiriir ee la sameeyaan maamulka Jubbaland iyo dowladda Kenya ka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay arintaasi guddiga xaqraadinta ee goboleedka IGAD ee ka socday u gudbiyeen goboleedkaasi oo sheegay inaysan ahayn mid dhexdhexaad ah isla markaasina uu ku tilmaamay inay ka fogaadeen cadaalad hal dhinac oo kaliya xog ay ka qaadeen wasiir Dube ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in dowladda Djibouti ay jibisay xiriirkii walaaltinimo ee soo jireenka isla markaasina tahay mid aan ka fogaatay cadaaladda taasina oo ku sii raaciyay inay yihiin kuwa ka fogaaday walaaltinimada waxaana uu xunuu yiri in dad qof walaalka ah oo ka heeliyay taasina ay tahay dhabarjab wanaagsan ee balse oo ka dharsugayaan dowladda Djibouti inay raaligelin ka bixiso watii la isugu tagay shirkii Djibouti ee madaxda IGAD shirka waxa la saaray guddi xaqiiqo raadina oo warbixin kusoo celiyay iga waxaan idinku yeelay maanta warbixintii oo soo baxday warbixinta igada soo baxday aad bay Soomaaliya u soo dhaweysay markii loo xil saaray dowladda Djibouti aan walaalaanahay in ay arinta gasho iyadu oo ay xaqiraad noqoto ay soo aruuriso riboodkii uu soo baxay riboodka waxa hogaaminaya 7 xubnood oo ha guddida xaqiiqaadka waxay ahaayeen 6 reer Djibouti ah iyo xubin ka socotayga 6 reer Djibouti waxay ahaayeen ambassador Yaasin Cilmi Buux oo safiirka Djibouti u fadhiya Kenya ambassador Aadan Xasan Aadan Belelo oo ambassadorka Djibouti u fadhiya Soomaaliya General Daahir Cali Maxamed oo general ka tirsan ciidamada Djibouti كورنيل علي آدن كورنيل محمد برخات كورنيل حسين إدريس يحوكيها وكا السعودية رباط كي صباحي دولة الصومالية وحو كل نقضي فتشع يا أمنكاك يا قادم واحد وحان لو فدين وأن لفلهين وحكاها الله يا رباط